شر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا قضية اللبات إيه راعدة وقضية عليس كذا له بريهنا برها بالشدة آد لو ودودي ضد بدن أي كهلين وذا أي كهلين دل يدبت بتشوجة وقضية دي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي إلى ورسمي هذا الكيسي وهذا دقيستين بانو ملايين أنا أقول مركو رمتش علي إن أنا كهالو إن بدن بوحان سوء إلي أضع دمان لو ما هاد ليه محلو هاد لا هذا البعض دمان لكن تلفونك إيا هذا الكبا يقول بطي وذا إسلامك محاكار ريبي وأديكي دجالمي تشرو فاجن شري مركب النبي وحلاقة شيء الدين كي بريان محاكو داري إن لا يستهمي تكتباش إن لا يستهمه أي تكتي وأرنسك علوس محاضرة جونية فرد جونية بيوبا هنتاي مركان أدو يسوق قاعدي ونديب هذا الكود دجايستينا وده ديه كهالله وأن يراها سلوجة سلوجة أن سلوجة درتيت بمحان السيني كلمة جوناها كقمين لكن بالعشر كمسلم كجوديس حقوق أن كدر إنه ديكتوشين كده قضب ككوبات وحان ربائن عن أمها النقو علماء المسلمين تهيت أنا عندنا بقى عابينين قضية ذا كهل سوداي إن أيدين كدفاعان أفلقات دي شائفة النبي قال له جيستي أي كديديان مسلمين تأي براروشيان كو عربيان أو كو ترترسيان يدين كود الدفاع ده أرنتها السكام مهنق بين مضانتها من الربو إن أن كهوس دعوه نيجي جيل شراها يسوي عيل شو هشوا هسي بحول مركي طبنتهاي أما لا تجو هاللي لو ما كلا تجول يعني جيلو مركو عيل كجو ما كي طبنتهاي أما لا تجي لا دعوه لو ما كلا تجو مركي عيل كجو تو حاشبي نيك شلي إن لو لسلو ديدي نيك اللي جمرت السوري وياي أيام مركي جيلو عيل كجو شبه أيوه حق لو قوليه هدي لا دعوه dhicinteedii iyo ku dagaalankeeda waxa laga rabaa ninkii gaadiid looga diiday hal maal looga diiday zakal laga siin waayay asagoo socota dhil caana looga lisi waayay marka wuxuu markay tobantaay ceel joogto weeyay hadda ama lala togay la dhaco wala looma kala taguuri looma kala tago wala isugu yimaada bimaana geela in la ilaaliyo la dhaqo waa dan guud weeye dhaqaalihi baa ku dhisan Soomaali baa ku taagan هو يركب مركب إنه دحية حسابات كأ مركز سكوا الله فيرن ما هي هرت جيل هلا شبا ورهلا دعشوا وي هذا وذا دهس وحبضنا النور دحية إن كمدوا قضية هذا الشيء هذا كل حن ماي حيا لو حكاها اللين هول أن لو كلا تجينين ولا لو ما كلا تقصوا ما قرطان ماشي أزعد مر هدي دينكي يا رسولكي يا شريعة إني خطر لجليي نيم والبو كهالله والدفاع اسكو دايا قال با الله كدغه حنا كان بدن yahay waad mahadsantahay inaan dhahno in Allah la yu'ayyidu bihada ad-din bil-rajul al-fajir wadaadaha maanta dad mahadnaqoda hadaan ka tago waxa si gaar ah u mahadnaqaya bulshada dhalinyarada lab iyo dhadig bale ee baraha bulshada aad uga dagaalamay hawsha ka dhiidhiyay ee wacdaraha ka muujiyay ee markaan dhageystay ama aan daba galay qalbigaygu ku qaboobay aad bar ugu farxad qadiyada in muslimiintu maanta dhalinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeena dura inay halka la gaaraan dareenka maanta ay qabaan dhalinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba hadduu 75 jiri lahaa علماء لما لا ير إن سياد بره
dam baarida kuma gowraceen ninka boqorka ama madaxweynuhu ah waa faajir daaqi ah wuxuu qiimeeyaa kolba bulshadu meeshay marayso haddii bulshadu yac tidhaahdo wuu cabsadaa haddii u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqo la ogyahay weeye arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabaha ay u kallifo weeye inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa lamida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhallinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga ee ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kallifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhallinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah ha siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan qodobka ii raaca waxaa weeye ina warsamo hadalkiisu inaan qiimeeyaan rabaa kadibna xugum saaro marka xigtana wadaadaha ka hadlay waxa ka khaldan aan tilmaamo marka xigtana waxa idinkaga aadan dadka noocaas oo kale aan tilmaamo qodobka koobaad waxaa weeye ee ku saabsan ina warsame hadalkiisa togan iyo ka taban bilow iyo dhammaad marka la qiimeeyo la dhibciyo wuxuu xambaarsan yahay in la quursado nidaamka islaamiga ee siyaasadeed la bumbuuniyo la ammaano la bilo nidaamka reer galbeedka siyaasadeed hadalka nuxurkiisa guud markaad qiimaysaynu ka hadlayna bilowga hadalkiisa ilaa dhammaadkiisu wuxuu iskugu jiraa hadal toosoo togan mubaashir ba carabiga lagu yidhaahdaa iyo mid taban af soomaaliya tabni baa la carabigana hayru mubaashir baa la yidhahdaa hadalka togan ee toosan iyo ka tabanba bilow iyo dhammaad markaad isku qiimaysa qiimayn guud waxaa ka soo baxaya maxaa ka soo baxaya waa dhagaysateene anigu 3 goor baa ku ceshaday waxaa ka soo baxaya nidaamka siyaasadeed ee islaamiga inuu quursanayo xaqirayo ama uu daraabayo xaggana uu bilayo wanaajinayo nidaamka reer galbeedka wastareenka siyaasadeed dimuqraadiga mucaasirka qodobka asaga waa kufrun fi diin ilaahi bi ijmaac almuslimiin gaalnimo uu ku dhacay kow iga dhimida ayada gaalnimada kale hadalkiisa uu xambaarsanaya labaad waxa weey inuu inkiray xadiidkii saxiix ahaa fi saxiixayn ummaduna ay kula kulantay bil qabuuli ay kula kulantay 1200 sano ka badan من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم يا أحاديث فربنا وذكرنيسا ناقصات عقل ودين وحكوت المامي إنا ورسمي وحكوت المامي إنه يا حديث فالسة أو ميلو كيمد أي سنشرين أو شاب كلا جلس صباحي حضور دائرة شديد دبلوماسي كده سياسي هيدا بي بسد أوسيين وحكوش شيء إنه حديث كأنه صحيح وأجيه حديث نبي محمد أكتها إنه السجيا نك الضفير حكم كيسو وكفر أصونا على الراجح من أقوالها العلم وإن كان من أخبار الأحد خبر واحد بالله كردجو نك الضفير حديث سجان لفظ جيسا أمام معانيهيسا أصوغ قرنية إنه السجيا هاي نبي جنا أوليه وكفر لباد أو كدعي كفر قصدحات uu ku dhacay waxa weeye hadalka taban laga fahmaya ama daahir bakuwa nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo culimada muslimiintu xaqiray laana xadiidka wuxuu sheegay inuu xaqirayo dumarka in lagu afjigo oo xaqay leeyihiin lagaga celiyo dumarka lagu quursado lagu xaqirayo xaqa siyaasadeed leeyihiin loogu diidayo xadiidku sugaya sidoo asagu uu arkay marka uu aaminsan yahay xadiidka xaqiraada iyo liidnaanta iyo dulmiga dumarka xambaarsan waxa ku hadlay nabi maxamed kaleey salaatu wassalaam taa macnaheeduna waxa weeye suubanuhu asaga kow ka ah wadaadaha iyo culimada xaqira dumarka xaqoodana u diiday afjiga xaqa siyaasadeedna sanka kaga dhuftay u diida
صوبنوا الله حقر عليه الصلاة والسلام نوام حي وكفر بإجماع أهل القبلة هذا الصدحات كفر صدحات إن تدا أفهمتين بان بلايريا وحان كهلا هذا الكيس توسكا متك صريحة كظاهر كالتزام كاللزوم كإيمانية أنتم واسكو قيميريا وحكوا كجرا هذا الكيس إن دقيستين بالغيا بقيبها الضمبية وحوليه هاي وحل الشيء اللي مصيبة دلن يبلايا دلن يلي بندرها دعي هذه دمر كسياسة اللودي بأما إيطاليان أما مدح النقدان وحبك مجران وبين بوليه هل كان وحود فريا وبين يصوبنها عليه الصلاة والسلام حديث كيسي أبو بكر نفع بن الحارث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة نبي ما قوليستان ما اللي بانا براسنا نبي جايدي أصلا وحول وابين وحبك مجران ويقوليستان يان وح مصيبة دعي ما يسوس كل دعي من ما هيو هاوشوا دق نبي الله كري أفبال لقيدي هذا الكيس واسدا سبعين دوحدين بانو وكفر أفراد وكفري يقال لما أفراد وي هذا الكاتب دقيستا مد شنادة أو كدعي قال لما هذا شنادة أو كدعي هذا الكيس إريقو أو قدام بيوي وحوليه هاي هدي دولة أن أود كلها أما أن كتري أي استماد الصوماليا وحان أقلانا يا أنقرر يا إن رجل يدمركو أي سميه ما إذا دقيسني بانو مالي رجل يدمركو السميهين وحبا ومد حيو دمركو رجل كم هو سيان ناقص مجرو والله فرض سيان بوليه وهذا ومحي وتقرير المساواة بين الرجال والنساء وكفر أكبر بإجماع المسلمين وأنا تي علماء اللي يقول لا يتضباطنيو شنتي قد يدو يسقالك وأما طبانك اللي قد لي كفر قاسي وكفر شنادوي كفر لحاد وكتر وحاوي هوينيدي قاشا هايد انجلا ماركل كدو قودي قال لماذا تنعس ككون نقطي أيو أمان كالدول دعي أدنى أماني وتبجيل كافر كفر عند الفقهاء قال إن لوينيو أولا بومبونيو وأمد قدوية كدش الله قد قال وقال لمن مدح بنان عند بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية بل وحي قارسين الفقهاء ولو سلم على مجوسي تبجيلا كفر ولو قال لكافر يا أستاذي تبجيلا كفر هداد قال وينيسو وكتر المعلن كيجي وبرفسور كيجي وأضو وينيني أما ثلاثة سلانة كم مقنع يسوي وينين كفرت بالله العظيم عند فقهاء الحنفية أنجلا ماركل قابك ويني يسوء بومبوني يمشوا جيي إلى أن كسكتين عن شعل هذا الناقطة أيوه ودي وامحي والتبجيل كافر كفر ما هو كفر بعد هيسان لحظة قال لهم كتيرا إنا ورسمه ستو سنة حتى سيسر بيبنا أقوموس توبت كين بامبو شيء مركو لها واربحين تبي بسد السيئي وحيلي وحن كودي معنا حديث كبنتي وي مركز باب الكفر هي تفسير الألفاظ مريسان الدلالاتك روح هذو قال لي معد كهالله أما إري ظاهر كؤه معنى كهالله كدبنا ومعنى كلا كأول لا يقبل عند العلماء حديث فالساء وميلو كيمد أوسنشرين أو شابك لقى الصباحي أي ضمرك اللي حقر يا هذا الكيس السريح يسوي ما يسماها وحان كود التفسير كيسي معناه سواء بين عط وكلام دبلوماسيا برد الليسي عامة على الربا إن شاف عدلا الله أرضه ضدك اللجوية على الربا إلى أمن كان توبة صريحة وولي منك أسقى موتشر لحظة كفري أيا أرمر كان هذا الكسفير يبرنان كتالا نيكي سيقود قدرة أفمدوبا لميل على جموايه ولقيه ليا كفريات كله maxaa muslimiinta kaga aadan muslimiinta waxa kaga aadan ninka asaga ah wuxuu khatar galiyay diinka iyaga wuxuu meel kaga dhacay qadarintii iyo xurmadii shariicada iyada wuxuu qursaday subhanahu naga calayhi salaatu wasalaam waxa waajiba naftiisa in khatar la galiyo
meel walba uu joogo lagu beegsado dhalinyarada muslimiinta la hadlaya jilib culusta lama hadlayo laano jilib custu waa igabeen hadday xubinkooda iyo cadkooda goostaana halkaaba maanta hawshu ma gaadheen ninka gabay ee geedkiisu nagu soo dumay waa duqayda dhalinyaradan la hadlaya dhalinyaradu waxa waajib ku ah ninka asaga sidoo muqaddasaadkiina khatar u galina naftiisa khatar u galisaan وأنا أتحمل مسؤولية ذلك بين يد الله سبحانه وتعالى مداسي وقضب أرهب قضب كير وحاوي ودادها كهالي بدن كود هجر دام الدينيت بيدن كسمية هجر دام الدينيت بيدين جيستين وحان كاهين انت أنا قد جيستين بان كهالي يا شيخ ظاهر أو عبدي يا شيخ حسن ظاهر أويس فك الله أسره waxaad arkaysaa kuwa kuwale ninka waa inuu toobad keeno ayagoon xukumayn waa idab darro iyo marin habaabin ummadeed weey ruuxu hadduu cudurdaar leeyahay ama kufri ku dhaco ama uu dembi ku dhaco cudurdaarna leeyahay ha toobad keena macnaheedu maxay tahay waa been caamadaa lagu siraa idinkaa waxaa laydin moodsiinayaa in la hadlay oo xaqi la caddeeyey oo diinka la sharxay oo diinkii la difaacay waa been wey ninku hadduu cudurdaar leeyahay oo ama mutaawil yahay agtiina ama uu jaahil yahay dembiba kuma dhicin muxuu ka toobad keenaya kufriba kuma dhicin muxuu ka toobad keenaya ninka mutaawilka ama jaahilka ama cudurdaar kale wuxuu ka soo ka dhigan yahay kaanahu lam yaqa inuusan ku dhicin wax dembi ama wax kufri ah miyaad aragtay nabi maxamed oo saxaabi khaladamay oo jaahila ama mutaawila tub ila allah ileh gawaanka cidada lidinku ordaya beenta ee geedka saramarada la idin saaraya iska ilaaliya dhagar iyo khiyaano way khiyaanada labaad ee idinka galeen waxa way ina warsame in badan oo kamida waxaan tuunsanahay in qabyaalad ay u caydhsanayaan in ayaga kamidana waxaan tuunsanahay in siyaasad ay u fiijisanayaan haddaysan jirin dareenkaygu uusan sax ahayn maxaa kala duway cali wajiis iyo ina warsame cali wajiis oo kii darad lahaa ma aha kitaabka quraanka looma soo dejinin in ummado iyo dawlado lagu maamulo ma aha qaamuus loo soo dejiyay in ummad lagu maamulo hadalka cali wajiis iyo hadalkan ina warsame kee khatarsan إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيبا أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إذن قرآنك وحالو سودتشي إن أمة نبي محمد لغم ملدل يدل يضد يدين با نينك الشلي لها كتابك قرآن كان ماها قاموس لو سودتشي أمة لغم مامولو شيخ يا عالم بوكوية هاي مساجد كسر دويستا كان هبر قدرنا واد في جسن محان مركا كامنة مودا دعاء تهاي مصدنيستا تهاي إن ورسم حكومته كتير سنة هاي يا أمير كذا فرماجة يا وحكويهين دولة إسلام أيجانا علي وجيز عيدن كيسو iyo farmaajo iyo kulligood iyo khayre waa maxay waa hal diro isku mid ah ummadda maxaad u dhakraysaan oo khaa'imaysaan haddaad cabsatee ma iska aamustaan ila waa lugooye haddii aad badhiraysaan xaqa ma cadaysaan maxaa keenay in laba shay isku mid ah bal kala daran kii daraan laga aamuso kii tabarta yaraana la fiijisto la cayrsado mindha hawshu waxa weeye miskiin baahe miska la fuule ina warsamay mindha tun jilicsadeen baa laga yaabaa
ama baraha bulshadu baryahan aad loogu dagaalamo custom laga raadiyo ayaa la qancinaya xogo balaqa loo tuuraya la socda amba diinka waan difaacay يعني وخلط هوشا يدا dhalinyaradu inay ku kadsoomaan ma aha dhalinyaradu inay ku kadsoomaan erayada khaldan ee majara habaabinta ah waxa weeye ee dul sare la meerayo waa khalad ummadda la rabo in lagu lugooyo ina warsame iyo intuu ka tirsan yahay ku dawladda waa isku mid xilli aan dheerayn buu lahaa laba kamid ah haddii aniga la yiraahdo shareecada miyaa lagu dhaqmaa amse dastuurka ay say no soo ma garanaysaa xagee jira ninkii saalaha kii uu sheeg hawarka keerayna waa fadhiyaa cali wajiis waxa ag fadhiyay markuu sidaa lahaa wadaadkii ictisaam amiirkooda ah ninkii saleebaan muxuu magaciisa bashiir axmed salaad baa ag fadhiyo dhowrahaya warkadaa mala soo video ma idan daawanin qurub nijaasa oo iskaalmaystay oo idinka idin lugoynaya way Soomaaliya waxay tiraahdaa dameero iyo dumar isku dir ala lama dago dadka aan la degantiina dawladda idin waa isku dir waa isku fir dirkan ka hadlaya ma kii qabyaalada la socdaata waa isku mabda iyo isku fikir baan ka hadlaya ciday dooni han noqdeen yaa la idin lugoyn beena idin sheegay inta caawa inaan dheeraado waa rabay ilaahay baana subhanahu wa ta'ala aanu ka sugaynaa dawlad islaam oo quman inuu nasiyo wixii diinka ayaa ka soo horjeedana ودميو بابئيو عدوغا مسلمين تي دينكا نغو هجبو وحي دينكا نغا تاغرسان الله قوليو فرينتيدو وحاوي أحد أمقان دينكينا مجر لا علمو ولا وايلي نبضونو دلين يرى أتالله شاء يدا يعني نلوغا صدعين الباب كإياه فرنتا تاغنتهين والله أعلم